السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أصحابتي ميل بادونيدا كجوجتان وساحبكين عيل تيرا بوي. جانل كان وجانل كيني أنيقونا وساحبكين برنامج كان وبرنامج كي جعلك إن أصحابتي واد أكتهين سيدا عن أبلا بيشخذا إني ولي أي أصعته إن فيديو عن كهوري وحن صاري يوتيوب كان إن أصحابته وصاق على دمي إن وان أركي كومنتيجيدينا إن آدم ما تسنتهين إن وحن ربا بلانتي إن اللي من لحدن كيكون إن اللي بين هل بلا نولا قبتي ويل كان وحولي هاي وحلا دها إبرة وحولي هاي برا مروال بقلبي أيان كداوع ما مروال بأن قف عن جعلاده قلبي أيو إيجاداوع إن كابتن هل مد أيان كلها هاي قفك إن واحد تبن dabeecada aad qafka kula dhaqanto soo qof walba hadii uu ku dhaawacay dibkeeda la dadka oo dhan wada xumaan kara muhiimadu waxay tahay in qafka aad jeceshahay dabeecada aad kula dhaqanto iyo dadka kale asxaabtaada dabeecada aad kula dhaqanto arno same ku tahay in marka waxaad isku daydaa qaf marka aad lamaana la noqoto in aad nolosha aad la qaybsanayso ama ha noqoto jaceelkaaga ama ha noqoto qof aad guursatay mar walba waa inuu qofkaas dadka kale uu kaaga socnaada dadka kale sida aad ula hadasho inaadan ayada ula hadlin sida dadka kale xishmad ay kugu leeyihiin ayada balse xishmad gooni ay kugu leedahay muhiimadu waxay tahay halka kala dhaxbax jawaabtaada waxaan ku leeyahay dadka kala dabeecada aad kula dhaqanto iyo dabeecada lamaanahaaga aad kula dhaqmayso ama lamaantaada ha ku ahaato mid bareefad ku ah yana noqonin saaxiibka ama saaxiibada gabar kala ah hadalka aad kula hadasho ayadan inaad kula hadasho marmarka qaar labada qofood markay is jecel yihiin hadana uu wax ka dhaxeeyo uu dareen ka dhaxeeyo jecel ka dhaxeeyo kalsooni ka dhaxeeso marmarka qaar way isku gafaan way isdagaalaan haddii ay isdagaalaan taa micnaheeda ma ahan qalbiga in la iska jabiyo muhiimadu waxay tahay qofka aad jeceshahay dabeecada aad kula dhaqmayso mar walba inay ku ahaato mid bareefada dadka kalena dabeecada aad kula dhaqmayso inay ku ahaato gooni qofka aad jeceshahay bahdilaad ma ku noqon karo hadal uu ku dhahay ama ay ku dhahday bahdilaad ma ku noqon karto ma ku noqon karo قفات جعشة هدي أد استجاشان تامعنيه ما أهم أيضا حناق هدي وكتم بدي أديجنا إنه كاتم بدي وأنا ذروناتا طبعا أديجو حناق كاتم بدي وإني أيضا ذروناتا سيء ونقطة جعل كنا ميد لقم يرد عليه أدد ضمات سنتا كابتن جوابت هذا أنا هالكاس كلا ضحبة قفك حيجو قبلنا نوحل ده لجعليه وحلا ده برو ويل أن حرير لهن إن مدا ayaan kala maqaneen oo waan isku dhacanay waxaan fahmi la ahay ama aanan sameey karin marka sidee aan u raali geliyaa walaashay hal mid ayaan ku leeyahay qofka aad jeceshahay dabcan markii uu ka xanaaqo arno way fududahay sida aad u raali gelin lahayd qofkan markii uu yahay qof adiga ku dareemayo misana hore adiga ku jeclaa qalad alaala qaladka aad doonto adiga ka gal balse muhiimadu waxay tahay in raali gelisid wad ku qasban tahay dabcan laga yaabo qofkan inuusan u dul qaadan karin adiga inaad boyso inuusan u dul qaadan karin adiga inaad murugoto qofkan sidoo kale inuusan u dul qaadan karin adiga inaad fikirto walaashay hal mid ayaan ku leeyahay ha cabsan niyada khayr u sheeg mar walba waxaan ku leeyahay ha cabsan horay u soco raali geli insha Allah wax walba وهي كو هرجلايا أديقنا واحد اسكت ديدا وحقو قفك أرجع شحي كاجا حناقايو إناد إسكت دافتو حدي أذن حتى دا فكرين إناد يريسو إسكونا دي قفك لما أنا حلت حاي إناد مرول بأذن كحناجيني مرول بأذن لدنالي اسكت دي مرول بيناد كفكرتو أدد ما تسنتا ولا شيء هل كان كلا دحبح فكرة هذا قفك حيجو ويل كان وحلا دها عبد القادر وحولي هاي gabar ayaan isjecelnahay haddana sidaas ay tahay mar walba waxay dhahdaa eray qalbiga iga dhaawaco haddana sidaas ay tahay waxa igu soo dhaco eray ee hore ii dhahday eraygaas oo ah ha iga fogaanin dabcan kabtan anigana hadeertan ayaan ku leeyahay ha ka fogaanin
erey xun markay dhahdo ka fogow waan isdhahayo dhahay ha ka fogaanin. Isku day waxa ay ku qaldan tahay inaad u sheegto, isku day inaad heshato, isku day marmarka qaar si gooniya inaad u waanayso, balse qalbiga qof ha ka jebinin weligaa. waxaad tahay qof dulqaad badan. waxaan ku dhihi lahaa nin ragaa tahay, wax walba kugu dhaco ama xanuun walba aad aragto cashiraad ka qaadanaysaa. nin sabar badan haddii aad tahay, wax walbana way ku hagaagayaan. ilaahay subxaana qaadirana ifka wuxuu u jecel yahay qofka sabarka badan. aragno marka sabarka badi, wax walbana way hagaagi doonaan. iskuna day si gooniya ayada inaad ula hadasho, aad dhahdo waxaas way i dhibayaan, isku day inaad iga dhaafto. aniga ma rabo inaan kaa fogaado, waxaa tahay qofaan jeclahay, mana lihi awoodan adiga kaaga tago, balse aniga sida aan kuu dareemo isku day adigana inaad ii dareento oo aad ii daryeesho. okay kabtan, intaas haddii aad dhahdid waa hubaal wax un way fahmi doontaa. waxaan ku dhihi lahaa horay u soco, noqo guulaysta mar walbo. qofka xigo, wiilkan waxaa la dhahaa cali. cali wuxuu leeyahay gabar ayaan jeclahay, saasoo ay tahay jecelkaygana uma sheegan karo oo waan baqayaa, maxaan sameeyaa? kabtan, qofka aad jeceshahay lagama baqo, mana laga xishoodo. jecelkaaga haddii aad la xishooto oo aad la baqdo, dabcan adiguna habeen walbo waad walwalaysaa, habeen walbo kiskiisa u dhimanaysaa. laakiin qofka aad jeceshahay marka aad jecelkaaga u sheegato, qofkaas jecelkii uusan kaa aqbalin haddii ay doonto, laakiin waxaa hubaal ah inay wax un kula dareemayso, sababtoo ah culays dhan kuma saarno. waxaan ku dhihi lahaa nin ragaa tahay, ha baqin, jecelkaaga ha la baqin, jecelkaaga sheego. dunidana waa cad iyo madow, qofba waa maalintiisa. maalin adigaa wato, maalinna anigaa wato, maalinna qof kala wato. maalintaada raaxayso, balse maalintaada markii ay kugu imaado adiga lagaa guulaysto ama jab lagu geysto, dabcan waa inaad ka ahaataa dhexdhexaad. dhibdhanba ha waa arkin, sababtoo ah maalintaadaba waad faraxsaneed soo maaha. marka saaxiib, waxaan ku leeyahay cad iyo madow noloshaada ahba. marka ha baqin, waxaan ku dhihi lahaa nin ragaa tahay, horay u soco, jecelkaaga sheego. haddii ay xiriir kala leedahayna, waxaan ku dhihi lahaa adigoo mahadsan, kumanaan adigoo ku jecelaa jiro, kumanaan adigoo kuu baahanaa jiro. ha isku dayin ayadoo xiriir leh inaad xiriir haddana aad u sheegato. qofka inta aadan xiriir la sameynin iska hubi xiriir may leedahay. haddii ay xiriir leedahay, ka wareego, kumanaan ku jecelaa jiraan, dadkaas fursad u sii qalbigaa uga faa'iiday. qofka aad nolosha wax aad ku darsanaysana kun marka fikir, si mustaqbalkaaga uu u noqdo mid hagaagsan. kabtan, aadaad u mahadsan tahay. waxaan ku dhihi lahaa horay u soco. si kalena kuma dhihin haddii ay xiriir leedahay ha u sheegan. waxaan ku dhahay qofkan haddii ayba xiriir leedahay ee qof kale ay jeceshahay, dabcan adiga fursad qalbigaaga uma hayso. waxaan ku dhihi lahaa qalbigaaga dad fara badan ha fursad u ahaayo ee sii, balse gar iyo gardaro waxaad ogaataa qofkaas inay xiriir leedahay inaysan lahayn. jecelkaagana sheego, marnaba ha baqin. aadaad u mahadsantahay saaxiib. qofka xigo, wiilkana waxaa la dhahaa likazi. wuxuu leeyahay saaxiib ciiltire, hal arrin ayaan rabaa inaan kula wadaago. gabar ayaan jecelahay, qalad weyn ayay iga gashay, saasee tahay waan cafiyey. qalad yaraan ka gale, saasee tahay ima aysan cafinin, maxaa dhacay? kabtan, labadiina waxaa idiin dhexayso, adigu boqoloo waa tahay, ayaduna waa kontoney. adigu garaadka aad ku fikiraysid ayada inta badan kuma fikiri karto. adiga sida aad u dulqaadan kartidna ayada waa dumar uma dulqaadan karto. laga yaabe walaashaahoo meel dheer kaala soo socoto marka ay aragto inay maseerto, ay kaaga xanaaqdo. dabcan markii ay kaa xanaaqday adiga horead ka cafisay, balse ayada way ku cafi weysay, balse ayada waa dumar. adiga waxaa lagaa rabaa inaad dulqaadato, aad sasabto, si walba aynan kaaga yeelin, haddana sidaasay tahay inaad sabsabto. shalay
dhiigga ay kugu jecleed ama dameerka ay kugu jecleed ama kalsoonidii shalay ay kugu qabtay dabcan sikin kuma baabi'i karto haddii aadan adiga dambiilo weyn aadan ahayn. muhiimaddu waxay tahay qaladka aad gashay haddii ayba tahay khalad yar, haddii uuba yahay qaladka aad gashay, muhiimaddu waxaa waaye sasab ha ka yeelin inay sii xanaaqsanaato ilaa ay ka degaysanayso. dabcan insha allah wax walba way ku hagaagi doonaan. waxaan ku leeyahay horay u soco, ninka guulaysta mar walba allaha kaa dhigo. anigana waan ku garab taaganahay. waxaan rajaynayaa inay dumaashidii ku cafiso. insha allah waxaan ku leeyahay horay u soco. asxaabta aad umahadsantihiin. waad ogtihiin sababaha igu kalifay inaan barnaamijka jaceylka aan soo bixiyo waa idinka. sababta igu kaliftayna inaan youtube-ka ka soo bixiyo waa idinka, sababtoo ah maalintii intaasoo qofooda commentiga tiktok marka barnaamijka jaceylka ama qof aan fikrad siinayo ii soo qorto fikradahooda igala hadlo, ayagoo soo qorayaan fikrado kala duwan. haddana sidaasay tahay hal maalin intaasoo qofood ma wada qancin karo. haddana sidaasay tahay idinkaa waxaa samayseen inaad idhahdaan soo youtube ma lihid. yes, youtube-kaaga maalintii 5 qofood waa uga hadli kartaa hal video. tiktokana hal video hal qofood waa uga soo hadli kartaa maalintii. saas 6 qofooda maalintii aad u qancin kartaa. dabcan tiina waa nii sameeyey. asxaabta mar walba aniga garabkiina taaganahay, mar walba waxaan ahay saaxiibkiin, mar walba idinkaan niigu lamaana ahay. waxaan rabaa tiktoka falowgiisana inuu socdo, hoosaa soo dhigaa. youtube-kana 60 kun oo noola ballan qaaday, oo ninka noo ballan qaaday uu dhahay wax aadan weligaa gacanta aadan ku qabanin aan gacanta kuu saari doonaa. dabcan inaa waxaasna adiga la shaqaysaan 60 kun bil gudaheeda noola qabtay ka badan inaad gaarsiinaysaan waan ogahay, waana niigu kalsoonahay. videoga hala share gareeyo, videoga hala share gareeyo. qof walba videoga soo gaaro ha share gareeyo, like-na ha saaro, si ay dadkoo dhan u wada arkaan meesha aan rabnana aan gaarno. anagoo dhan hal hadaf aan leenahay, hadafkaasoo ah youtube-keena inuu noo gaaro meesha aan rabno. asxaabta aad u mahadsantiin adiga i fiirinayo sida adiga jeceshahay aniga waa ku jeclahay. dabcan laakiin maadaama walaalka aan ahay waxyaalaha qaar inaad igu adkaysaa isku dayin. okay, I love you. aad u mahadsantiin asxaabta.